بسم الله الرحمن الرحيم كلنت wanaagsan daawadayaal halkani waa keenan ku soo dhawaada qodobada wararkeena ugu waaweyn dagaalameel ka tirsan ururka al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay dib ula wareegeen 12 sano kadib degmada Maxaas oo gobolka Hiiraan ka tirsan ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa mar kale ku dagaalamay magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa sheegtay in degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ay ku qabatay xubno sarsare oo ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab shirkii lagu dhameystiri lahaa maamulka SSC Qaatumo ee ka socday magaalada Laascaanood ayaa lagu soo waramayaa maanta inuu hakad ku yimid ama uu baaqday marka dibaddana waxa ugu waaweyn Yahuudda oo bilowday in raashin ay hawada uga daadiso dadka marinka Gaza intaasi daawadayaal waa qaar kamid ah qodobada wararkeena maanta ugu waaweyn haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan hibe eeba ku siiya habeen la iskama qaade Hodan Hospital waa heerkii u sareeyo dalkeena laga hirgeliyay Hodan Hospital waa isbitaalka nuuciisu yahay kii ugu horeeyay laga furay dalkeena waana standard caalami ah Hodan Hospital waa hoyga kulmiyaha doorka caafimaadka dal iyo dibadba Hodan Hospital aynu ku bilownay wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay gudaha u galeen magaaladaasi kadib dagaal xoog lahaa oo saaka ururtii ka bilowday wararku waxay sheegayaan in al-shabaab ay dib ula wareegeen magaaladan muddo 12 sano kadib ciidanka dawladda iyo sidoo kale kuwa macawisleyda ee deegaanka ayaa isaga baxay magaaladan kadib markii ay qaraxyo ka dhaceen banaanka magaalada saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda iyo kuwa maamulada ee deegaanka iyo sidoo kale kuwa maamulka Galmudug ayaa lagu soo waramayaa in dagaalkan waxyeello ka soo gaartay warar la xaqiijinaya sheegaya in saraakiisha ku dhimatay uu kamid yahay taliyihii nabad sugidda magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud oo gurmad ahaan u joogay magaaladan Maxaas la yiraahdo Maxaas waxa ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika al-shabaab ay ka saareen sanadkii 2014 wixii ku soo kordhay xaaladda magaalada Maxaas iyo wararka gobolka Hiiraan halkan ayaad kala socon doontaan haddii ay beedmo haddii aan eegno magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gadana wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Jubbaland ay mar kale magaaladan ku dagaalameen wararku waxay sheegayaan in dagaalka uu ka bilowday kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ay howlgal magaalada ka bilaabeen waxaana jira iskoorimaad magaalada ka dhacay dadkii farikutiriska ahaa ee ku sii haray magaaladan ayaa ka qaxay waxaana wararku sheegayaan dagaalka xaafadaha qaar uu ku sii fiday wili dhinacyada dagaalamay kamaysan hadlin dagaalkan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in howlgal ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa nabad sugidda ay ka fuliyeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ay ku qabteen xubno sarsare oo ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab qoraal ka soo baxay hay'adda NISA ayaa lagu sheegay in howlgal ciidamadu xalay ka fuliyeen degmada Afgooye ay ku qabteen laba horjooge oo al-shabaab ka tirsanaa kuwaas oo dhuumaalaysi magaalada ku joogay waxay hay'adda NISA sheegtay in labadan horjoogay mid uu u qaabilsanaa al-shabaab ururinta lacagaha baadda ah ee dadka ay ka qaadaan ee sakawaadka ay ugu yaraan halka midka kalena uu ka tirsanaa waaxda amniyaadka isla markaana xilligaas uu ku howlanaa ururinta iyo helista xogaha ciidamada magacyada saraakiishan lama shaacin magaalada Laascaanood ee gobolka Sool wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in maanta uu hakad ku yimid ama uu baaqday shirkii lagu dhameystiri lahaa maamulka SSC Qaatumo wararku waxay sheegayaan ergooyinku maanta inaysan xaadirin howlka shirka waxaana jira khilaaf ka dhashay arrimo la xiriira ama qodobada qaar ee ergooyinku maalmahan ay ka doodayeen oo dastuurka magaca iyo calanka uu kamid yahay ergooyinka qaar ayaa aan xaadirin howlka ama ka biididsan waxaana guddiga farsamadu ay wadaan dadaal xoog leh oo ku doonayaan inuu shirkan uu sii socdo wararka aynu helayno waxay sheegayaan in maalinta berri ah shirkan loo madalsan yahay si rasmi ah looma shaacin maanta waxyaabaha shirkan uu u baaqday halkaad warkaasi kala socotaan saaxiibayaal waa xarunta dhexe ee shabakada wararka kulmiye keenan xarunteeda magaalada Muqdisho ciidamada Yahuudda ayaa sheegay inay bilaabeen inay raashin ay u qaybiyaan dadka ku nool marinka Gaza oo iyagu ay barakiciyeen wasaaradda difaaca Israa'iil waray soo saartay iyo muuqaal ay baahisay waxay ku sheegtay in diyaaradahoodu ay bilaabeen inay hawada uga daadiyaan dadka Gaza raashin
raashinkaas waxay sheegeen uu ka koobnaa noocyada sokorta bariiska burka iyo daawooyin hay-adaha samafalkuuse arrintan waa ay ka digeen oo waxay muujiyeen inay halis ay keeni karto in kumanaantan oo raashin hawada looga daadiyo goobo dad shacaba ay ku nool yihiin waxaa jirta xaalad sii xumaanaysa oo qase ka taagan oo hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee samafalkuba ay ku sheegeen macaluun inay ka jirto taasoo saabtay in dhowr qof ama boqolaal qof ay u geeriyoodaan saacadihii lasoo dhaafay yuhuuddu waxay sidoo kale sheegtay inay furayso marinada loogu talagalay gaadiidka gargaarka inuu ka galo marinka Gaza ee hadda xiran warkii aad kala socoteen keenan xaruntada dhexe magaalada Muqdisho saaxiibayaal waana intaas tani warkan la mid inta ku kulmi doono nabadgelyo